بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. maanta oo taariikhdu tahay 1 Oktoobar 2022 sida media laga wada maqlay ama madaxdu wada sheegtay ama cid waliba maanta Soomaaliya og tahay waxaan halkaas ugu nimi inaanu wadacno shahiid saaxiibkay shakhsiga ugu dhow buu ahaa aniga ugu dhow geesi buu ahaa wuxuu ahaa shumac soo baxayay oo dhalinyarada da'diisa ah uu ahaa fiyooro soo socda wuxuu model u ahaa 2 milyan oo dhalinyaro oo xamar joogta ayaa farxaan oo kale waxa maskaxdeeda ku soo dhacay markuu high schoolaadka imtixaanaadka dhamaadeen oo 27,000 oo arday ay imtixaan galayeen uu amni ku soo dhameeyay oo isaga kor u qaadayeen waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaan la hadlo waxaan rabaa qof kasta oo booliiska Soomaaliyeed darajo kasta iyo fadhi kasta ka tirsan yahay inuu noqdo farxaan oo kale waxaan ugu magac daray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka Haramcad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyay ama aan ku dhawaaqayaa xarunta Haramcad ee General Farxaan magacaas qaadan doontaan magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaasho daraaday ugu dambeysay halka wada joognay wuxuu tusayay ciidanka dhintay uu u sameeyay kaarta uu sameeyay yiri hebel magaciisi isaga iyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tira intay ii sheegtay labadoodii aan ku daray aabay tirmaanta ilaahay ha u naxariisto shakhsi ciidankiisa jeclaa oo ciidankiisii ilaa shalayto sarkaalkan waxa lagu gartaa ciidanku xukumaa laga gartaa midna waxa leeyahay ilaah baan dhaafiyay midna ciidankiisa aanu maaraynaanu garan weyne ciidankiisa jeclaa madaxdiisa jeclayd shacabkiisa jeclaa magaalada xamar laga jeclaa